kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada VOS caawa haddii Allah awood leh dhankiisa laga helo waxaa idinla socodsiinaya anigoo Isxaaq Rashiid Maxamuud ah qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkeena caawa waxaa ka mid noqonaya Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii ugu socday teendhada Efesiyoni madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe waxaana shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble arrimo quseeya doorashooyinka Soomaaliya ayaana shirka looga hadlayay haddii Allah awood leh dhankiisa laga helana warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaad barnaamijkan ku daawan doontaan guddigii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble u magacaabay baaritaanka dhacdadii ciidamadii AMISOM ay ku xasuuqeen dad shacab ah oo markaasi maanta kulankoodii ugu horeeyay la yeeshay taliska AMISOM ayaad ku daawan doontaan warbixin amuurtaasi la xiriirta kulan looga hadlayay amniga oo shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan barnaamijka faaqidaada ayaad ku daawan doontaan warbixin iyana amuurtaasi la xiriirta magaalada Baydhabo waxaa maanta ka dhacay kulan looga hadlayay sare u qaadista waxbarashada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maamulkaasi ayaa ka qayb galay kulankan barnaamijka faaqidaada warbixin amuurtaasi la xiriirta ayaad ku daawan doontaan oo diyaar garooba mar kale kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada aan ku bilaabay waxaa maanta Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii teendhada Efesiyoni ugu socday madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe waxaana shirka looga hadlayay arrimo quseeya doorashooyinka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaana shir gudoominayay shirkan markii uu soo ilaaday waxaa warmurtiyeedkii laga soo saaray warbaahinta u aqriyay afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo hanaanka maareynta miisaaniyada doorashada waxaa loo marayaa habraaca soo socda ee dhismaha guddiga maamulka maaliyadda doorashada oo ka kooban guddiyada doorashada ee heer dawladda federaalka Soomaaliya heer dawlad goboleed iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha furitaanka xisaab bangiyeed gaar ahaan maamulka maaliyadeed ee doorashada single treasury account si waafaqsan miisaaniyada doorashada waxaa guddiga maamulka maaliyadda doorashada ay dejinayaan qoondada qarashaadka doorashada ee heer dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya qarashaadka doorashada waa in lagu bixiyaa 15 maalmood gudahood marka la soo dalbado qarash bixinta si waafaqsan shuruucda maamulka maaliyadda dalka habraaca xulidda ergooyinka doorashada ergada doorashooyinka oo ka kooban 101 ergo waxaa dooranaya golaha shacabka waxaana soo xulaya duubabka nabadoonnada ka diiwaan gashan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga waxaana hubinaya guddiga doorashada ee heer dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ergada banaadiriga iyo Somaliland ee ka codeynaya Muqdisho waxaa soo xulaya duubabka nabadoonnada iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga ee la isla ogol yahay waxaana hubinaya guddiga maamulka doorashada Somaliland iyo banaadiriga waxaana korjoogteynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha liiska ergada kursi kasta waa in ay ugu jiraan ugu yaraan 30% haween xubnaha bulshada rayidka ee ka mid ah xubnaha xulista ergada waxaa soo xulaya guddiga doorashada ee heer dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka xubnaha bulshada rayidka ee ka qayb qaadanaya xulista ergada waxay ka kala imanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada xubin kasta oo ka mid ah xubnaha xulitaanka ergada kama tirsanaan karaan guddi xulis ergada kursi kale marka laga reebo jufooyinka wadaaga ergada xubin kasta oo ka tirsan xubnaha xulitaanka ergada ma noqon karo ergo ama musharax doorashada u tartama xubnaha xulitaanka ergada waa ay soo xuli karaan ergada doorashada si waafaqsan hanaanka ergo ee qaybsiga doorashada 2016 oo laba jibaaran ama si kale oo ay heshiis ku yihiin kooramka codbixinta ergada waxa uu ansax noqonayaa marka ay joogaan ugu yaraan 3 meelood 2 meel oo ergo ah 2/3 si loo hubiyo hufnaanta amniga iyo sugnaanta ergada liiska ergada ee kursi kasta waxaa hubinaya guddi hoosaadka amniga ee dawladaha xubnaha
ka ah dowladda federaalka si looga hortago faragelinta argagixisada iyaga oo ka hubinaya hay-adaha dambi baarista iyo xasilooni darrada amni ee doorashada. sidoo kale kuraasta Somaliland iyo Banaadir waxaa hubinaya hay-adaha amniga waxaana korjoogteynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha. habraaca amniga ee doorashada si waafaqsan heshiiskii 27 May waxaa la go'aamiyey in la abuuro guddiga amniga doorashada oo ka kooban 10 xubnood oo kala ah: 1 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, 2 taliyaha booliska Soomaaliyeed, 3 taliyaha booliska Puntland, 4 taliyaha booliska Jubbaland, 5 taliyaha booliska Koonfur Galbeed, 6 taliyaha booliska Galmudug, 7 taliyaha booliska Hirshabeelle, 8 taliyaha booliska Unsom, 9 taliyaha booliska Amisom, 10 xogayaha amniga ee guddiga doorashada ee heer federaal. xogayaha amniga ee guddiga doorashada ee heer federaal ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa ka mid noqonaya guddiga amniga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. B in la diyaariyo ciidan amni oo doorashada ee dhammaan goobaha ay ka dhacayso doorashada, gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta Somaliland, Banaadiriga, guddoonka labada aqal ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. C golaha wada tashiga qaran waxa uu farayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga labada heer in aysan ku milmin faragelinna ku samaynin arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada. D in guddiga amniga doorashada ay golaha wada tashiga qaran siiyaan warbixin joogto ah. C howlaha horyaalla guddiga amniga doorashada: 1 hirgelinta guddiga amniga doorashada, 2 diyaarinta qorshaha howlgalka iyo miisaaniyadda amniga doorashada election security budget and operational plan. 3 golaha wadatashiga qaran ayaa ansixinaya qorshaha howlgalka amniga doorashada. 4 diyaarinta tababarista guddi hoosaadka amniga doorashada iyo ciidamada ammaanka ee ilaalinaya doorashada ee labada heer ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. 5 kormeeridda amniga ee goobaha doorashada. D khidmadda warqadda dambi la'aanta ee musharaxiinta iyo ergada. khidmada warqadda dambi la'aanta ee musharaxa waa $750. dumarka musharaxiinta waxay bixinayaan kala bar khidmadii musharaxiinta iyadoo la raacayo heshiiskii golaha wadatashiga qaranka. B khidmadda warqadda dambi la'aanta ee ergada waa $30. 4 hindisaha habraaca xaqiijinta kootada haweenka 30% ee baarlamaanka. golaha wadatashiga qaranka ayaa mas'uul ka ah hanaanka ilaalinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka. B iyada oo laga duulayo heshiisyadii doorashadii iyo ilaalinta qoondada haweenka, madaxda dowladaha ka ah xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya oo gacan ka helaya guddiga doorashada ee heer federaal dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aaminaya astaynta kuraasta haweenka kaliya in ay u tartamaan. weli barnaamijkii faaqidaada VOS ayaa daawadayaal daawanaysaan oo idiga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka uu ku leeyahay Muqdisho. guddigii ra'iisul wasaare Roble u magacaabay baaritaanka dhacdadii ciidamada Amisom ay dad shacab ah ay ku xasuuqeen ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyay la yeeshay taliska Amisom, iyagoona kala hadlay sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dadkaasi shacabka oo ay markaasi dileen. wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda ayaana markaasi warbaahinta la wadaagay kulanka maanta ay yeesheen taliska Amisom. waxaan isugu nimid shirkii ugu horeeyay shirkaas oo labada dhinac Amisom iyo maaragtay taliyaha ciidamada maaragtay Uganda iyo maaragtay African Union iyo maaragtay safiirka Uganda waxaan ka wada hadalnay dhinaca kala Soomaalina waxa matalayay wasiiradii uu ra'iisul wasaaraha magacaabay oo ugu horeeyay wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatadii meesha ka dhacday loo xalin lahaa. 3 qaybood ayaan u kala qaadnay. dadkii dhibka geystay ama ciidamadii dhibka geystay oo badankooda hadda la soo xiray, qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda. taasna ay dowladda Soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamada Amisom ka wada shaqeyn doonaan. qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dhibka gaaray, walaalaha ahaa maaragtay familkii dhibka gaaray gaarka ahaa in ayagana maaragtay arintoodii la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay, iyadoo ay maaragtay ay nagu waafaqeen ay naqirteen dhibkaasi inay geysteen ciidamada Amisom.
qodobka kale oo asagana muhiimka ah waxa waaye ciidamada AMISOM dalkan ayay nala joogaan since 2007 dhibaatooyin kale inaynan mustaqbalka dhicin in laga hortago oo loo diyaariyo maxaa la dhihi jiray dib dambe shacabka Soomaaliyeed xanuun noocaan oo kale inuusan u gaarin taana waxaan iskala diyaarinay istiraatiijiyad cusub oo lagu kontroolayo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM inaynan dib noocaas oo kale dambe uusan u dhicin loona sheegi doono dhammaan sektarada iyo laguna tababari doono inay sharciga caalamiga ah ilaaliyaan oo ah in shacabka la protect gareeyo ama shacabka laga ilaaliyo cadowga intaasaan hadda ka wada hadalnay waxaan u ballanay guddi farsamo oo arrinkan ka shaqeynayo ayaan diyaarinay oo maxkamadda iyo arrimaheedii si dhow ula socon doono golaheeni wasiirada inta lana ka magacaabay iyo xafiiska ra'iisul wasaarahana waxaan ka shaqeyn doonaa in familiyadii aragno in wax allaala wixii dib meeshaas ka dhacay si hoose aan u eegno hubinana inay xaqoodii helaan cadaaladiina ay maaragta la sirfagareeyo ama cadaaladiina la helo aada u mahadsantiin barnaamijkii faaqidaada ayaa daawadayaal daawanaysaan marmarkana beledweyne kulan looga hadlayay amniga uu shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kulankan waxaa looga hadlayay xaqiijinta amniga markaasi beledweyne oo dhawaan halkaasi la filayo inuu gaaro madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen waxaana markaasi markii uu soo dhamaaday kulanka maanta ay yeesheen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed iyo saraakiisha ammaanka warbaahinta markaasi u sharaxay ama ugu warbixiyay waxyaabihii kulanka looga hadlay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Hiiraan Cornel Isaaq Cali Cabdulle Bismillahir Rahmanir Rahiim maanta waxa xarunta gobolka Hiiraan magaalada beledweyne arrintiisa maamulka waxa ka dhacay shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed shirkaas oo looga hadlayay amniga magaalada iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle sida la socotaanba Soomaaliya waxa ka jira ama ka socda doorashooyinkii baarlamaanka kuwii aqalka sare iyo kuwii aqalka hoose hadda rajaynayno waxa dalka dhammaan uu ku jira diyaar garow ku saabsan arrimahaas amniga si loo hagaajin lahaa shirka maanta dhacayna wuxuu daarnaa arrimahaas iyo daarnaa waxaan ka wada qayb galay ciidamada dhammaan ciidamada Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida iyo ciidanka AMISOM sector 4 saraakiisha ugu sii sareysay shirkaas waxa aad loogu falanqeeyay shalina uu dhacay maantana uu dhacay aad loogu falanqeeyay sidii loo hagaajin lahaa amniga magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda si ay si nabadgelyo ah ugu dhacaan doorashooyinkaas ugu dhacaan runtii meel fiican ayaana la dhigay insha Allah taala awal markii hore magaalada amnigeeda uu iska wanaagsan wax dhibaato ah kama jirin haddana waxaan go'aansanay ama ay tahayba in aanu amnigaas hagaajino si boqolkiiba boqol ah arrintaas ciidamada hadday yihiin kuwa AMISOM iyo kuwa Soomaaliyeedba si wada jir ay u wada qaban doonaan haddii la hadno shacabka Hiiraan ama shacabka beledweynena waxaan leenahay inay ka qayb qaataan sugidda amniga maxaa yeelay amniga cid walba ay dan u tahay inay qaybta kaga aadan ay ka qayb qaataan caawiyaan ciidamada ayadana aad baan u soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qaybihiisii dambe ee barnaamijka faaqidaada VOS ayaan daawadayaal isla soo gaarnay marmarkana Baydhabo magaalada Baydhabo waxaa maanta ka dhacay kulan looga hadlayay sar u qaadista waxbarashada dowlad goboleedka ama deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada oo kulanka maanta ka dhacay halkaasi ka qayb galay ayaa warbaahinta la hadlay kulankan maanta in isugu nimid waxaan rabnaa sanadkii 2 mar ama 3 jeer inaan qabano kulankeen ugu hore hadda caasimadda ku meel gaarka Baydhabo aan ku qabanay waxaan kale oo rabnaa inaan ku qabano caasimadda Koonfur Galbeed Baraawe waxaan kale oo rabnaa inaan ku qabano caasimadda saddexaad ee Koonfur Galbeed Xudur hadduu Ilaahay idmo sidaan ayaan ku wadeynaa idinkana waxaan idinka rajaynaynaa
sidii hadda aad ku socotiin isa ka fiican inaad noqotiin ayaa idin rajeynaya insha Allah waxaan filayaa hadda xoogaa waxbarashadii in hoos loo daadajiyay sanadkan imtixaanka grade 8 sanadihii hore anaga qaadan jirnay labadii sanadood la soo dhaafay sanadkan waxaa nagu soo ziyaado ah imtixaanka form 4 ama galaaska 12aad oo culus ayaa idin taala ben idin ma sheegay waliba gudoomiyaasha degmooyinka aariyada kormeerayaasha agaasim waaxidyada shaqaalaha howlwadeennada kale hooshu aad bay u culustay waxaa loo baahan yahay inaad dhabar ka xirataan oo la is adkeeyo oo sidii deegaankan aan ku samata bixin lahayn wixii waxbarasho ah inaanu gaarsiinaa loo baahan yahay waxaan idinka codsanayaa in aariyada iyo dhammaan howlwadeennada in xoog iska saaraan arintaas lana dardargeliyo hadduu ilaahay marka gabdhuhu dhiirigelin weyn ayay u baahan yihiin waalidkana mar walba waxaa ka warqabi kara gabdhaha reer koonfur galbeed waxaan ku dardaarmaynaa inay gabdhaha dhiirigeliyaan shaqada howsha guriga inta badan loo diraayana aanan loo dirino oo shaqada la kala fududeeyo wiilkan wax waa karan karaya aniga Suudaan markaan joogo raashinkayga anaa karsan jiray gebi ahaanba daawadayaal waxaa caawa halkaasi aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada VOS barnaamijka caawa waxaa soo saaray Yuusuf Maxamed Axmed dhanka kaamirada Big Show ayaa inoo joogay anigoo Isxaaq Rashiid Maxamuud ahna waa idinla socodsiinayay waxaan iga tagayaa sidaas iyo nabadiino